السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي qaaliga aad baa idin salaam saaxiibayaal meel kasta dunida afeeda ka joogtaan waa mar kale muuqaal cusub magacaygu Cabdiraxmaan Famos channelka aan naga daawanaysan Famos Official fadlan hadii taa markaa kugu horeysaan soo boqotay subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar share na si dad badan u gaaro waata maanta muuqaalkan kollay sida u wada jeedaanba idima soo ag fariisan iyadoo waqtigu ii suurta gelin waayay iyo branch aan rabo inaan ka hadlo waxa wada ogtiinba in hawada laga saaray saacadii ugu dambeeyay Miss Wall TikTok-geedii iyo sidoo kale Huda Amoon haddaba Miss Wall waxa ay gaartay saacadihii ugu dambeeyay 1 million followers TikTok sidoo kale Huda Amoon maalmo ka hor ay gaartay sidoo kale waxa iyadana gaartay 1 million followers oo TikTok ah boqorada isteelka haddaba dhamaantood horta waxa leenahay hambalyo inkastoo aad uga xumaa runtii Huda Amoon iyo Miss Wall arinta soo gaartay oo ah in TikTok-goodii hawada laga saaro Miss Wall way hadashay sidoo kale ciwaan kale ka hadashay iyadoo ay leedahay oo team Miss Wall ku qoran tahay iyadoo oo sheegtana in ay runtii aad uga xun tahay falkan dhacay inkastoo oo ay ku eedeynayso in dad ay ka dambeeyeen haddaba Miss Wall waxa ay sheegtay in dad khaas ay ka dambeeyaan saacadaha ugu dambeeyana ay sheegi doonto sababta ka dambeysay in TikTok-gada hawada ka baxo أصحابي أرد مدة من اللي عموسي كرو والله بالله ترى وإذا على قاعدين سجل مفاد عبانك هالكملين هبدا لو عونه هد عبانك هالكملين هبدا لو عونه وحصل سمعنا يا واستقانين والله بالله ترى فيديو كوعي مقعيدنا شيء إلهي وحقونا عباندين هبدا إنه كبحايو يا عباندين أقولها صوت هدو هبدا كبحا Miss Wall sidoo kale waxa ay sheegtay in ay ku dhaliilayso Huda Amoon sababta hawada looga saaray hambaliyada iyo farxadda ay la qaybsatay saaxiibadeeda Miss Wall dad badan kollay way isweydiinayaan sababta TikTok hawada uga baxay laakiin anaga ma sheegi karno waxyaabo badan oo qarsoon baa jira laakiin waxaan rajeynaynaa insha Allah saacadaha ugu dambeeyna soo bixi doonaan haddaba Miss Wall iyadoo sheegaysa qaabkii TikTok-ga hawada looga saaray iyo Huda Amoon ba in ay muuqaalkan ku qeexday bal muuqaalka insha Allah la daawo Huda ka saarteen ama ay saarteen because Miss Wall Huda u soo hambaleysay ma wax loo saaray Huda ciwaankeeda birina qadraa ku soo xigtay ma ya waas ogtiin dadka ka hadlay nacala ay wajidin inta la asxaabay dadku Huda Amoon ku xiran dadka qadra ku xiran dadka Miss Wall ku xiran asxaabay please dadkan oo report kan wahayo wax ka qabta ay ka report ku sameey ciwaanadoodana hawada halu waay please aad soo ciwaanka Huda Amoon fiiriya haddaba anigu waxaan kamid ahaa dadka u hambaliyay dhamaan dadka 1 million followers gaaray sababtoo walaalka horumar gaaray inaad adigana la farxdaa aad bay muhiim u tahay laakiin waxaan aad iyo aad ugu xumaa runtii farxadii iyo reereyntii iyo baashaalkii ay ku jireen inay murugo isku bedesho waa arin la yaab leh waa arin dhacda xanuun badan waxaan runtii u sheegayaa dadka Soomaaliyeed kollay shalay waa garab taagneedeen 1 million waa gaarsiiseen oo followers ah inaad sidaasi ka daran aad gaarsiin doontaan insha Allah cadowgoodana ay dhaafin doontaan kollay dadka sameeyay arintan oo kollay ama ha jabsadaan ama report ha gudbiyaan labadaba in ay ka dambeeyeen dad kollay cadowgooda ah marka runtii gabdhaha aad baa loo qaybsanayaa murugada gabdho walaalahay oo kale horumar sameeyay inkastoo ay marba u liis gareysan yihiin dadka Soomaalida ah faraktriska 1 million followers TikTok gaara ma sha Allah laakiin runtii aad baan ugu xumahay arintaas dhacday falkaas dhacay insha Allahna waxaan rajeynayaa in Huda Amoon soo hadli doonto iyadana ay sheegi doonto sababta ka dambeysay inkastoo dad badan ay runtii la murugoodeen oo aad ugu baxay inkastoo dad badan ay falkan la murugoodeen runtiina waa arin naxdin leh saaxiibayaal muuqaalka inta ku kulmi doona iyo wixii soo kordhay insha Allah wararkii ugu dambeeyay waa inala socodsiinaya waxaan leenahay